Assalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada. Maanta waxaan ku kala saari doonaa sawirkaada nooca hogaamiye aad noqon kartid mustaqbalka. Sawirku waa waxa ugu horeeya ee qofka lagu kala saari karo, sida ay sheegeen saynis yahanadu. Sawirka hadda hortaada kaaga muuqda waxaa tijaabo loogu sameeyay 20,000 oo ruux. 20kaas ruux kaliya waxaa ka feelgarooday ama sidii la rabo ku soo bixin 10%. 90% sawirkaani wixii ay ka sheegeen ayay mustaqbalka isku noqdeen. Haddaba sawirkaani waxaa la shaaciyay dhawaan. Sawirkan ayaa ah mid la sameeyay 2001. Haddaba maanta ku beegan tahay taariikhdu 2022 ayaa warbaahinta lala wadaagay intii ka soo baxday sawirkan. Haddaba maanta waxaan rabaa in aan ka mid dhigo 20,000 oo qof oo lagu tijaabiyay sawirka. Waxaana ku weydiin doonaa su'aalihii la weydiiyay dadkaasi, adigana waxaa isii doontaa sidii u badan tahay jawaabihii ay bixiyeen dadkaasi. Si fiican u fiiri sawirkaani oo sheeg waxaad ka aragtay isbiriqsigii koowaad. Haddii aad ka aragtay isbiriqsigii koowaad ama ishaadu ay qabatay muggi ugu horeeyay 2 nin oo iska soo horjeeda, haddaba waxa aad tahay qof wax walba dusha ka fiiriya oo hoos u raaricin. Haddii aad aragtay 2 nin oo iska soo horjeeda iyo bohol dhinaca geeska ka taala, ugu waxaa noqon doontaa qof wax walba hoos u gala oo aan kor ka fiirin, oo wax walba hoostooda fiiriya, oo wax ku qarsan kaliya fiiriya. Waxaana tahay qof aan la degi karin. Haddaba dadka arkay 2 nin oo iska soo horjeeda, dadkaasi waa dad aanan waxba ka fiirin, kaliya waxa ay dadku sheegaan ama waxa korka ay ka arkaan kaliya ay iska rumaystaan. Haddii dadka arkay 2 nin iska soo horjeeda iyo godka dhinaca ka xiga, waxa ay yihiin dadkaasi kuwa aad u aqli badan oo wax walba si ay yihiin ay u sheegaan. Haddaba comment ku dhaaf wax aad ku aragto sawirkan adigoo runta sheegaya.